Bismillah. Solving system of equation ayuu cashirkeena maanta quseeyaa. System of equation waa isla-egyada wada jirta. Xalinta isla-egta wada jirta ayaan maanta ka hadli doonaa insha Allah. Horta waa maxay system of equation ama isla-egyada wada jira maxaa la yidhaahdaa? Waa isla-egyada wada jira wax kale ma ahan, waa laba isla-eg oo leh laba doorsoome. Doorsoomayaashaas qiimahooda in aan soo saarno ayaa nogula baahan doonaa. Sideen usoo saareynaa marka? Si aan usoo saarno marka waxaan maraynaa hababkan soo socda hab ka mid ah. Waxaa jira dhowr hab oo lagu xaliyo isla-egyada wada jira. Habka koowaad waxaa loo yaqaanaa substitution method oo ah habka isku beddelka. Habkaasna waxaad adeegsan doontaa in aad labadii doorsoomo aad soo heshid hal doorsoome waxa uu kula egyahay kadibna qiimihii kaleeto ee isla-egta aad imaadid oo aad ku beddelan doontid doorsoomahaas wixii kuu soo baxo. Kadibna sidaas ayaa waxaa ku heli doontaa doorsoomihii kala qiimihiisa. Elimination method asna waa habka baabi'inta ama habka isku jaridda. Waxaa la samayn doonaa laba doorsoome qiimayaashooda ama horgalahooda isku mid uu yahay calaamadahana ay kala duwan yihiin in aan isku baabi'ino. Haddii aysan isku mid ahaynna adiga ayaa isku mid ka dhigi doontid, waana arki doonaa example-kiisa. Habka saddexaad asna waxaa loo yaqaanaa comparison method, waa habka isku barbardhigga. Iyo habka ugu dambeeya oo ah habka sawirida oo graph ahaan ayaa loo muujin doonaa. Substitution method haddii aan ku bilaabno habka isku beddelka ama ku beddelashada haddii aan ku bilaabno tusaalaha koowaad oo aan ka qaadan doono waxaa lagu dhahay solve the following equation. Waxaad xalisaa isla-egtani soo socoto haddii doorsoomaha y uu kula eg yahay 3x oo lagu daray 5 halka isla-egta koowaad waa taas halka isla-egta labaadna lagu siiyey y in ay kula eg tahay 2x plus 3. waxaa laga rabi doonaa qiimaha x iyo qiimaha y-ba in aad soo saartid. Marka koowaad waxaa samayn doontaa labada isla-eg ee aad haysatid mid ka mid ah kasoo qaado, ama isla-egta koowaad kasoo qaado ama isla-egta labaad kasoo qaado. Anaga hadda waxaan sameynaynaa isla-egta koowaad ayaan soo qaadanaynaa. Isla-egta koowaad waxaad haysataa y waxay kula eg tahay 3x plus 5 waa isla-egtii koowaad. Waxaan sameynaynaa marka in aan soo helno qiimaha x in aan la soo baxno. Si aan ula soo baxno x waxaad haysataa 3x oo lagu daray 5. Marka waxaan samayn doontaa in qiimaha ku darsan qiimaha u baahan tahay waa kana 5 ayaa ku darsan. 5 waa qabanaysaa waad iska wareejinaysaa oo plus oo wataa hadhow markii lasoo wareejiyo calaamadiisa oo isbedelay maxay qaadanaysaa minus oo waxay noqonaysaa meeshaas y oo laga jaray 5 waxay kula ekaan doontaa markaas 3x. si aad u soo heshid qiimaha x marka waxaan sameynaynaa toos 3x dhinaca nagu soo wareeji y minus 5 na dhinacaas u soo wareeji. Markii isoo wareejin dhammaystiran ay dhacayso wax calaamad oo isbedeli doono ma jiro. Waxaan leenahay marka 3x waxay kula eg tahay y minus 5. Si aan u soo helno qiimaha x waxaan sameynaynaa meel walbo 3 ayaa u qaybinaynaa. Intana 3 u qaybi, intana 3 u qaybi. 3 iyo 3 waa isku baxeen. waxaa kuu soo haraya inta x ayaa kuu soo hari doono. halkan waxaa kuu soo harayo y minus 5 oo loo qeybshay 3 ayaa kuu soo hari doona. Marka halkaas waxaad ku haysataa x wixii lagu heli lahaa. ilaa hadda qiimaha x ma hayno sababtoo ah meeshaan y ayaa yaalo. y marka koowaad aan soo helinaa, markii y aan soo helna kadib ayaa waxaad heli doontaa qiimaha x. Step-ka xiga marka maxaan sameynaa? Isla-egta koowaad aan soo qaadanay xarafka x wuxuu kula egyahay la soo baxnay. Isla-egta labaad tag marka haddana x wuxuu kula egyahay y minus 5 oo loo qeybshay 3. haddana waxaad soo qaadanaysaa isla-egta labaad. Isla-egta labaad waxaa lagu siiyey y wuxuu kula eg tahay 2x plus 3. isla-egta labaad soo qaado waan soo qaadanay. booska x waxaad ku bedelataa qiimihii x hadda kuu soo baxay ku bedelo. oo x maxaa noo soo baxay y minus 5 oo loo qeybshay 3 ayaa noo soo baxay. booska x marka waxaan ku bedelinaynaa u fiirso y minus 5 oo loo qeybshay 3. waxaan sameynaynaa markaas kadib labo bracket kusoo furo marka 2y ku dhufo waa 2y, 2 lagu dhufto minus 5 waa minus 10. okay y waxay kula eg tahay marka 2y minus 10 oo loo qeybshay 3 oo lagu daray 3. waxaan sameynaynaa step-ka xiga hooseeya haddii uu jiro hooseeyaha baabi'i. si aad u baabi'isid hooseeyaha waa soo qaadaysaa meel walba ayaa ku dhufanaya. inta ku dhufo hooseeyaha 3 inta ku dhufo intana bracket geli intana 3 ku dhufo. sidoo kaleeto qiimahan maxaa sameynaysaa
saddex ku dhufo meel walba saddex ku dhufo marka haddii y saddex aan ku dhufano wuxuu noqonaa saddex y inta imaa marka hadhow marka waxaa dhici doonaa saddex iyo saddex inay isku baxaan saddex saddex ku dhufano meequu noqon doonaa sagaal ayaa meeshaas kuu soo baxaysa insha allah meesha maxaa kuu soo baxayo sagaal ayaa kuu soo baxayso ila soco okay waxaa haystaa marka 3y inta hooseeyay waa baaba'ay waxaa kuu soo haray 2y minus 10 saddex haddii saddex lagu dhiftana maxaa soo baxayo sagaal ayaa soo baxayso halkaas markii aad maraysid macalina waxaa samaysaa wax allaale wixii xaraf ah dhanka bidix isku marso wax allaale wixii tiro ahna dhanka midig marso meesha marka wixii tiro dhanka midig waa manoo taalaa laakiin xarfihii xaraf ka mid ayaa wuxuu kaa yaalaa dhanka midig saas awgeed waxaa samaynaysaa in aad wareejisid oo aad geysid dhanka bidix markii aad wareejinaysid oo aad dhanka bidix aad geynaysid 2y soo qaaday waa soo wareejinay intaa keenay marka halkaas aad keenaysid calaamadiisa hadda marka inta yaalo plus waa u qarsan yahay markii la soo wareejina calaamadu way isbedelaysaa waxay noqon doontaa minus 3y haddii laga jaro 2y equal minus 10 plus 9 dhinaca midiga ku yaala 3y 2y ka jar macna waxaa kusoo bixi doono y oo keliya hal y ayaa kusoo bixi doona wuxuu ku leeyahay minus 10 plus 9 waxaa samaysaa marka tirada weyn tirada yar ka jar waxay kula egtahay hal tirada weyn maadaama ay wadato calaamada minus jawaabteedana waxaa siisaa minus saas awgeed waa maxay kula ekaanaysaa minus 1 intaas markii aad ka dhammaatid oo xarafka y aad soo heshid waxaad dib ugu laabanaysaa x-kii kow aad soo hesha aad soo qaadanaya markaas oo ahaa y minus 5 oo loo qaybsho saddex waxaa samaynaysaa marka qiimihii y hadda aad soo heshay minus 1 waa soo qabanaya booska y ku bedelaysaa okay minus 1 waa ku bedelanay minus 1 minus 5 muxuu ku leeyahay marka minus iyo minus maadaama ay yihiin calaamadaha hal ka soo qaadanayna oo waxa dhina minus hal iyo shan waxa ku sameeynaa waa isku darsanayna 6 ay noqoneen haddii si kale aan ku dhigno adoo ku shindeen ugu leeyahay minus 1 waa wax ugu leeyahay ku shindeen adoo ugu leeyahay haddii 5,000 aad ku sii darsatid oo deen ah meeqa ayaa lagu yeelaa waxaa lagu yeelan doonaa 6,000 oo deen ah marka waxaa samaysaa haddii calaamadaha isku mid ay yihiin halka soo qaado tirooyinkan isku darso hal 5 ku dar meeqa waa 6 calaamadaha minus iyo minus isku mid waa halka soo qaado saddexna hooseeyna waa hadda markuu fiirso 6 oo calaamadiis ay minus tahay iyo 3 calaamadiis oo plus tahay isku qaybi 6 3 u qaybi waa 2 haddii minus iyo plus isku qaybina maxaa soo baxayo minus cafwan marka meesha maxaa ka dhiganaa x wuxuu ku leeyahay minus 2 x marka qiimihiisa maxaa ku leeyahay doonaa minus 2 6 3 u qaybi maxaa ku leeyahay minus 2 waa inuu wuxuu ku leeyahay minus 1 marka labada qiimo sidaas ayaad ku haysataa markii hore waxaan sameynay in aan soo qaadanay labada isla eg kamid ah inaan soo qaadanay kadibna aan la soo baxnay xarafka x iska tirtiro kuwan marka haddii aan dib u laabano waxaan sameynay markii koowaad waxaan soo qaadanay labadii isla eg mid kamid ah ayaan soo qaadanay isla egta koowaad ayaan soo qaadanay xarafka x ayaa qiimihiisa la soo baxnay oo waxaan hoos ku baxay y minus 5 kadibna waxaan sameynay isla egtii labaad equation 2 ayaan soo qaadanay markii aan soo qaadanay booska x waxaan ku bedelanay qiimihii aan la soo baxnay oo ahaa y minus 5 oo loo qaybsay 3 halkaasna marka waxaan ka helnay qiimaha y haddana dib waxaan ugu laabanay x-kii kow aan soo helnay qiimihiisa y-dii wixii aan soo helnay booska y ku bedelo sidaasna waxaad ku heli doontaa x qiimihiisa oo kula ekaan doono minus 2 salaamu calaykum waa inoo example xiga